بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan daawadayaashu kunad ku taxaan boggeenna bimunaasabati ramadaan inuu soo gelayo munaasabadda ah waxaan ku soo gudbinaynaa duruus kooban oo munaasabadda ramadaanka axkaamtiisa iyo waxaa habboon inay tahay in la sameeyo. darsigeena koobaad wuxuu ku saabsanaan doonaa haddii alla yidhaahdo soo gelitaanka bisha, sugnaanshaheeda iyo masaa'ilka la xiriira. sharcigeennu laba arrimood buu u jideeyey dhalashada bilaha ama bisha ramadaan munaasabadeeda hadda aan joogno. laba dariiq keliya ayuu sharcigu xadeeyey. waxa dhalanaya laga hadlayo waa bishii ramadaan, waxa loo diyaargaroobaya ee loo raadinayana waa xukum sharci ah oo rabbi jidayey subxaanahu wa tacaala dadkana ka doonayo. haddaba sharcigaa wuxuu xadiday say bishu sharci ku noqonayso. bisha dhalashadeedu waa labo: dhalasho xisaabeed iyo dhalasho sharciyeed. bimacnaa sharcigu dhalasho uu aqoonsan yahay bisha inay dhalatay iyo dhalasho xisaab ahaanahoo dee xilligay ku aadan tahay ama xilliga dhalashada xisaabeed ee kale oo falag iyo culumba shaadamuhu tajaaribtooda ay ku ogaan karaan. labada uu sharcigu u jideeyey waxaa weeye imaa shacbaan inay 30 ku dhammaato oo bilaha islaamkiihii 30 kama bataan, 29na kama yaraadaan. haddii ay 30kii shacbaan dhammaato 31na aanay noqon karin, isla markaaba si toos ah waxaa u dhalanayso ay u noqonaysaa bishii ramadaan. sida labaad ay ku sugnaan karto waa in bisha la arko oo bilashadeedii aragti sharci ay ku sugnaato habeenkii bisha shacbaan 30ka ahayd. habeenka 30aad ee bisha shacbaan haddii bishii ramadaan la arko, ramadaan baa kow noqon, shacbaanna 29 bay ku dhammaan. haddii la arki waayo oo ay qarsoonto, dhalashada kale ay dhalatay sharci ma aha, waa xisaab. ta sharcigii aragtidaa weeye. saa darteed buu nebigu calayh isalaatu wassalaam uu yidhi fa in humma calaykum, haddii la idinka qariyo, daruuraa qarin kara, sababo kalaa qarin kara oo qofkii meeluu wax ka arki karaba inuusan joogin. hadday la qariyo ood arki kari weydaan, xataa iyadoo dhalatay oo la arki waayey inayna dhalan bay la mid tahay xukunka sharci ahaan. saa darteed baa la yidhi fa in humma calaykum, haddii bishii la idinka qariyo, faakmilu lciddata 30, bisha 30 dhammaystira. imaa bishii shacbaan 30keedii inay dhammaystiranto oy sidaa aragti uma baahnee ramadaan ku bilowdo, oo imaa bishii ramadaan in la arka habeenkii 30ka shacbaan noqon lahayd oo shacbaanna sidaa 29 ku dhammaato, ramadaanna sidaa ku soo galo. cidda aragtida loo ogol yahay aragtideeda wax lagu salaynayo waa qof kastooo muslima oo ah markhaati ka baxa lagu ogeyn
ibnu cumar baa wuxuu yidhi dadka istusay habeen bisha nabigaanu imidoo inaan arkay baan u sheegay bilaal buu amray dadka in loo sheego bishii ramadaan inay dhalatay saa darteed soo gelitaanka bisha ramadaan hal qofoo looga qaateena ayaa ku filan haddii qofkaasi uu arko aragtidii way sugnaan bishiina way soo gashay haddii wakhtigii ku habboonaa la soo sheegi waayo oo maalintii dambe iyadoo dadku afuran yahay la ogaada bishii in la arkay maalintaasi bishii ramadaan bay ka mid noqon dadkii afuray inta ka horraysay ogaanshahana dembi ma laha laakiin markay ogaadaan kadib cunnada iyo cabbitaanka way iska dayn maalintaasna dib bay ka soo qadayn waxaan ku gabagabaynayaa hal masalo oo soo hartay oo ah mas'alada xisaabta iyo bisha aragtideeda iyo dhalashadeeda waxaan horey harayga ku soo tilmaamay waxani waa xukum sharci ah wuxuuna ku dhisan yahay aragti sharci ah bisha dhalashadeeduna waxaan soo sheegnay dhalasho xisaabeed iyo inay kala tahay dhalasho sharciyeed xisaab ahaan wakhtigaasay dhalatay waa la dhihi karaa laakiin sharci ahaan wakhtigaasaa la arkay bay u baahan tahay ama shacbaan baa dhammaatay u baahan tahay haddii la yidhahda keliya waxaa lagu soomayaa xisaab ahaan bay dhalatay waxaa meesha ka baxaysa dhalashadii sharciga ahayd iyo masalatu aliqmaam iyo fa in gumma calaykum xisaabta hal wax baa looga faa'iidaysan karaa way kala mid tahay waxyaabaha mawaanicda kale waxaa la yidhahda linafyi ma dhici karta in la arka bishii in laan la arki karin ama qofka sheegay inuu arkay laga beensadoon laga rumaysan waxyaabo badan baa sharcigu sababi kara in jawiguba dadan yahay oo daruuro ka wada sokeeyaan oo dadkii la joogay qofka waan arkayla ay garan karaan inayna suuragal ahayn inuu arko waxyaabaha mustaxiilka aan dhici karin qofka hadduu sheegtana sharcigu sheegashada iyo dacwada lama aqbalo ama bil aragtideeda ha noqoto ama yaanay noqonin oo mas'aladu kuma xidhna keliya waxaan rabaa inaan ku idhahdo waxaa mustaxiilaadka ah dacwa almustaxiili ama dacwada yukadibuha daahir sida daahirka muuqataay uu beeninayo lama aqbalo mustaxiilaadka waxay dhahaan nin baa yidhi wiil ninkan anaa dhalay oo aabbaan u ahay da ahaanna ma dhali karo ama waa isleeg yihiin ama kawaan dhali laleeyahay baaba weyn waxyaabaha yukadibuha daahirku uu beeninayana sida tan daruurtu qarisay oo kaleetana te waxaa ka mida nin gurigi qof lahaa oo dhistay oo lagu yaqiinay maalinka dambe anaa leh iska yidhi si uu ku yeeshoo gadasho iyo siinana ayna jirin oo intii la duminayee la dhisayay ag taagnaa wax maanicoo u diidanaa inuu sheegtana aanay jirin dacaawo badanoo waxaa jirta sharciga loo diido ama waa mustaxiil umaba dhici karto ama daahirka oo dhan baa beeninaya xadda istixaalada loo yaqaaniya mustaxiil yaanay gaadhinba haddaba bishii xisaab ahaan ma dhalan jinsiga waxay soo gelaysaa lama arki karo sida loo dhihi karaa qofkani ama goobtan lagamaba arki karo nin xabsi ku jira oo bannaanba u soo bixin hadduu yidhahdo bisha waan arkay wataas ama soomaalidu si halkudhiga u tiraahdo nin indhoola uu yidhaahdo wataa bishii waan arkaa oo indhaba melida seed ku aragtay baa la dhihi waxyaaba waxaa jira mawaanic ah qofkii haddii qof been lagu yaqaana uu yahay warkaaga ma yeelaynaa la dhihi waa kaynu soo sheegnay qofka laga aqbalayo waa inuu yahay qof aan been lagu aqoonin iyo wax isdabamaris saa darteed xisaabtu mar waliba sida dabiiciga ah waxay ka hormartaa dhalashada xisaabeedii
way ka horraysaa dhalashada sharciga ah. saas darteed waxyaabaha lagu beenin karo aragti qof sheegtay oo wax khalada inuu arkay ama istusay ama warkiisa aan la qaadan karin loo dhihi karo, hadday xisaab lagu kalsoonaan kara noqoto way noqon kartaa. masalada qoraxa iyo dayax iyo socodkooda iyo wareegooduna waa masale xisaabeedoo xisaab lagu ogaan karo. ilaahina ashamsu waalqamaru bixusbaan. dhalashadeedii iyo in la arki karana masalada xilligay dhalatay iyo xilliga qoraxdu dhacday baa saamayn ku laho. waxaan rabaa inaan ku idhahdo waa masale xisaabeed, sida xilliyada dayaxmadoobaadkaba xisaab ahaan loogu sii qiyaasi karo. laakiin sharcigu xilligaasay madoobaan qoraxdu xisaab haddii lagu saleeyo ay qadiyad xisaabeed noqoto, ilaa madowgii la arko salaaddii sunnada ahayd lama jideeyo. aragtida iyo inay dhacdo buu madowga sharciga ee xukun ka dhashan noqdaa. tanna aragtidii sharciga ahayd baa wujuubkii iyo axkaamtii ka dhashaan. laakiin tan kale waxyaabaha mustaxiilaadka ama diidaya mawaanicda ay ku beeri kartaa. intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa cashirkeenna iyo xalqadeenna koobaad oo ah bisha aragtideeda iyo sugnaanshaheeda. xalqad iyo dersiga labaad oo ku saabsan diyaargarowga bisha ramadaan ayaynu isugu iman doonaa dersiga xiga. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.